maamulka degmada Salaxley ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee nabadgelyada degmada Salaxley. Maayarka degmada Salaxley Maxamed Cabdi Haariye iyo sidoo kale xogayaha fulinta dowladda hoose Cabdinuur Maxamed Carab ayaa ka warramay xaaladda guud ee amniga degmada Salaxley, iyagoo sheegay in xaaladda nabadgelyadu ay tahay mid aad u wanaagsan. Sidoo kale maamulka degmada Salaxley ayaa ka hadlay dhanka cashuuraha, iyagoo bulshada deegaanka ee dhulka ku leh gudaha degmada Salaxley ugu baaqay inay si degdeg ah u soo bixiyaan cashuurta lagu leeyahay. waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego nabadgelyada degmada Salaxley runtii waa nabadgelyadu fiican tahay, hadday tahay wadooyinka iyo hadday tahay dhammaan guud ahaan deegaanka nabadgelyadu alxamdulillah wax dhibi ma jiraan. wadada cad gaadiidku waxay u maraan si fiican, hadhiyo habeen booy maraan, cid la hadasha iyo wax garanaysaa dhiba ma arkaan, soo dhaweyn waxaan hayn lama kulmaan. marka waxaan sheegayaa xaaladda wadada cad qaas ahaan deegaanka intaan maamulno ee Salaxley inay 100% hadhiyo habeen nabadgelyo iyo si wanaagsan ay gaadiidku marayaan. taas waa taa talabada waxaan doonaa halkan uga faa'iideysto cashuurihii deegaanka oo ugu horeyso maadaama la sameeyay toonbale la geliyay magaaladii oo imika magaaladii loo diyaariyay inay magaalo weyn noqoto oo toonbalekeedii inay dadkii dhulka ku lahaa ay dhulka cashuurtaan, mulkiyadu sameystaan, cidii magaranaysaa ay ka jeeday wadada dhulka ay ka jeedana fiilashooda ay keenaan si dhul bedel loogu sameeyo. على حال إن لكي ما دام المجالات اللي قرشلو سمي يقفل بها الكيسي شرعي يسطو صاشبه العقد عشورته سو كلام الكيدي سي فريش سو استاندر وقعته أيان يدنا أركن كشيء سو كل تولوين كي مجالات هو سماته يجانا وحنو الشيء يعني صباحيا عشورته وحلو لي هاي بيرات هاي هاي هنتي دم كورته ده الشركة نور هانتي كهذا إني نبتقليه ده iyo amniga guud ee degmada mudooyinka dhaweyto xaaladii shaqada ka soo maxaytay baxday ka dhacday maxaytay xadadka inaanay wax saameyn ku yeelanin maxaytay wadadan cad oo runtii ah wada maartay muhiim u ah qaranka ahmiyad weyn ugu fadhida oo isku xidha maxaytay gobolada Jarar iyo maxaytay gobolka Maroodijeex ilaa gobolka Saaxil. wadadana ay muhiimadeedu tahay in ay waraabiso gobollo fara badan oo ka mid ah dowladda deegaanka Soomaalida. maxay tahay qorshe aad u weyn intii qarankan ka leeyahay inay baabuurta ilaa maalintii ilaa maanta si fiican u socdaan oo aan wax nabadgelyo darro oo ka dhacay jirin, cid lagu boobay aanay jirin, cid wax lagu yeelo wax leeyahay aanay jirin, ilaa maalintii day wax dhaceen ay baabuurtii maraysaa ay si nabadgelyo ay u marto. insha Allah ta'ala saasna oo socon doontaa wax nabadgelyo darro ka dhacayna ma jirto. waxaan arkay bariyahan social media iyadoo maxay tahay hadal lisama marinayo anagu wax nabadgelyo darro aan ku ognahay oo maxay tahay maalin quraata gaar wax lagu yeelay degmada Salaxley gudaheeda iyo xuduudda ay la wadaagtay dowladda deegaanka Soomaalida in gooxa ma jirto. si fiican bay baawartiis ku geeshtaa. ilaahay wax ka baryayaa inuu nabadda u sii wado ummadda. haddii ilaahay raahdo anaguna mar walba heegan baan u nahay haddaan nahay dowladda hoose. sidoo kale halkan waxaan baaq uga dirayaa shacabka dadweynaha degmada Salaxley oo runtii waagi hore doorashada ku jirnay aan baaq halkan uga dirnay xagga cashuuraha in ay maxay haytay dadkii maxay haytay aan mulkiyada sameysay mulkiyada soo doontaan maadaama master plan-kii degmadu ka howlgalay kana hana qaaday degmada gabagabana ku dhow yahay in ay qof walba uu bloodkiisii iyo dhulka meesha ku lahaa dib u cashuurto. sidoo kale halkan waxaan baaq uga dirayaa dadkii hore la siiyay danta guud in ay muddo 6 bilood ah gudaheeda ku soo dhistaan. qofkii aan ku soo dhisan muddada dan guudna ku lahaa degmada dhexdeeda in talaabo insha Allah ta'ala sharci waafaqsan laga qaadi doono lagala noqon doono.